بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. walaal waxaad ogaataa sixir ma dhaco shaydaan la'aantiisa. sixir ma dhaco shaydaan la'aantiisa. shaydaanka ayaa mas-uul ka ah sixir waliba adduunkan ku dhaco. qof waliba oo la sixiray, qof waliba oo dhaawac gaaray, oo dhaawac waxaan ka hadlayaa dhaawac ruuxaani ah, waxaa ka mas-uul ah shaydaanka. laanna ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi qur'aanka واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. marka waxa keenay sixirka waa shaydaan. marka sixir shaydaan la'aantiis ma hergalayo. qofku wuxuu raba ahaado sixir ma samayn karo shaydaan la'aantiisa. marka qofka saaxirka ah daa'iman waxaa la shaqeeyo shaydaan ayaa la shaqeeyo oo sidaas ma aragtay ayuu dadka oo ku sixiraya. dadka ayuu sidaas oo ku sixiraya lianna bani aadam kaligiisa sixir ma samayn karo. waxaad kaloo ogaataa sixirka la cunay iyo sixirka la cabay daa'iman waxaa daba socdo khaadima sixir, waxaa daba socdo jinni. lianna sixirkaasi oo qofka uu cunay waxa adkeyn karo waa khaadim sixir oo qofka dhaawac u geyn karo oo la imaan karo jirooyin badan gaar ahaan caloosha. waxaad arkaysaa qofka calooshiisa ma aragtay daa'iman xanuun ayaa haayo lianna waxaa dhici kartaa sixirkaas ou cunay inuu waxa keeno ma aragtay jirooyin badan. waxaa dhici karto in sixirka markii la soo gelinayey jirka qofkaasi in lala soo geliyey jinni oo jiran. la'anna duruusteena haddaan gadaal ugu noqonno waxaan hadda kahor aan sheegnay waxaa la rabaa yacni qofkani wax in loo geysto wuxuu raba ha noqdo, yacni qof in lagu diraa la rabaa. waxaa la soo gelinaya jinnigaas oo qofkaas necbanaa la soo gelinaya asoo xanaaqsan oo dhibsanaya qofkaasi. mase waxaa la rabaa qofkan in jiro nooceerad ha noqoto, calool ha noqoto, madax xanuun ha noqoto, wuxuu raba ha noqdo, yacni waxaa la soo gelinayaa jinni oo jiran ayaa jirkiis la soo gelinaya. qofkaas jiradii ay sidaas ay ku dhacaysa. waxaa kuu sii dheer sixirka oo qofkaasi jirkiisa ku jiro. marka labadan arrin markaan ogaano hadda waxaan ogaanay in ma aragtay sixir shaydaan la'aantiisoosan jirin. kow tan labaad waxaa kaloon ogaataa in sixirka la cunteeyey oo la cunay mise sixirka la cabay daa'iman waxaa socdo waxaa la jiro jinniyaa la jiro. jinniga ayaa jirka qofka soo galaya. yacni aniga daraad yacni waxaad arkaysaa qofa ma arad kuu sheegaayo ku dhahay sheekho anoo u jeeda koobka horteeda yaallo ayaan arkaya waxaa lagu dhex ridaayay tiri. wax ayaa lagu dhex ridaaya koobka. marka waa dareemaysa inuu yacni qofkaasi agagaarkiisa inay jinniga uu joogo oo sixirka sidaas ugu jidiidinaa ayadoo u jeedo oy cunayso mise ay cabayso. jinnigana sixirkan wuxuu u baahan yahay yacni saaxirka aan ka wadaa. saaxirka wuxuu u baahan yahay jinni oo asaga hadalkiisa maqlo, jinni oo asaga hadalkiisa maqlo oo wixii loo diro ku kaco. marka jinnigaas waa lagu xirayaa jirka, rabt ayaa lagu sameynaya, waa jirkaaga lagu xirayaa sidii jinnigaas uu ku sameeyey sida uu ku sameeyey wixii loo diro. lianna haddaan la xirin oo jirkaaga lagu xirin sidoo raba u dhaqmaaya, sidoo raba ayuu dhaqmaaya. marka waxaa la rabaa alwalaa lisaaxir, inuu qofka saaxirka uu ka dambeeyo, inuu oo saaxirka hadalkiisa uu maqlo. sidaas ayaa jirkaaga loogu soo xirayaa. la'anno hadduu xurriye la siiyo oon jirkaaga lagu xirin waxwaa hadduu raba iska dhaqaaqaya, jirkaaga ka baxaya, jirkaaga ayuu ka baxaya. marka waxaa la rabaa mar walibo
in oo jinniga la hubsado intaan la gelinin jirkaaga mise jirka qofka intaan la gelinin qofka jiran waa inaa la hubsadaa lianna waa askarigana waa inuu maaragtay hadal maqlaa oo maaragtay uusan ku soo jeesanin ninka maaragtay mas-uulka ah marka jinnigana sixirka oo la galo jirka uu la soo galo waxaa kaloo ogaataa hadduu jinniga sixirka la soo geliyo jirka waxaad ogaataa inuu sixir kale uu u baahan yahay oo bannaanka yaallo waa inuu jirka bannaankiisa waa inuu sixir kale yaalnaadaa limaada lianna jirkaaga sixirka ku jiro wuxuu u baahan yahay cunto siduu ku soo adkaado kulaalka sixirkaas bannaanka yaalla ka imaanaya iyo midka adiga jirkaaga ku jira ayaa isla shaqaynaya waa isla shaqaynaya ghidaa ayuu u noqonayaa mar waliba markuu sixirka adiga cibaado aad la timaado salaad aad la timaado qur'aan aad la timaado ood waxyar aad baabi'iso kii bannaanka yaalli maaragta ayaa soo adkaynaya marka kuleelka ayuu u soo dirayaa jirkaaga ayuu kuleelka saas ku soo galaya sixirka jirkaaga ku jira sidaas ayuu kusii adkaanaya marka afartan shay hadda anaga aan sheegnay waxaad ogaataa inay isla shaqeeyaan waan sheegnay sixirka shaydaan ayuu u baahan yahay kan la cuno iyo kan la caba daa'iman waxaa daba socday shaytaan jinniya daba socda oo jirkaaga ku jiro saaxirkan wuxuu rabaa nin jinni askari ah oo hadalkiisa maqlo tan afaraad waxaad ogaanaysaa in oo ma aragtay daa'iman jinni hadduu jirkaaga ku jiro waxaad ogaataa sixir kale inuu bannaanka u yaallo oo midka adiga jirkaaga ku jiro adkeenayo oo mar waliba markaad cibaadada aad badiso markuu daciifoba oo maaragtay sidaas oo kuleel kusoo gaara uu ku adkaanayo marka waxa waaye yani waxaa jira dad maaragtay yani waxay isticmaalayaan geedan waa lagu shubmaa daawadan jinnigay dhibaysaa kan waxa waaye yani waxa waaye dhibka anaga na haysta waxa waaye oo zamankan ah wax badana anaga xoogga aan saarno waxa shaydaan jinniga dhibaaya geedkan haddii la shido xildiidkan haddii la shida jinniga u dhibaaya kan haddii la shido shaydaanka waa dhibsanaya shaydaanka dhibsidiis iyo dhibsadaradiis meeshaan nooma taalo anaga waxaan rabnaa sixirka inanoo baxo jinnigaa dhibsanaayo jinniga ta'hiir ayuu sameeyey jinniga woo qayliyey jinniga woo ooyey waxaasoo dhan wax kuuma taraayo marka waxa waa daawo walibana aa cabto maaragtay sixirka dili mayso shuban waliba adiga aa shubanta qasab ma aha inuu sixirka soo saaro daawaa la maqlaayaa waxaa le daabadan waxay maaragtay waa lagu shubmaa daawada shubmaa la cabaaya wax laguma noqonaya sixirkan baaba'ay marka wax waliba adiga aa cabto ood is tiraahdo maanta maaragtay wuxuu bixinayaa sixirka waxyaalaha qaarkood aan bixinayna ayaa jiro mise daawo lagu bantagaa jiro aan sixirka dilaynin marka qofka daa'iman inuu iska ilaaliyo uu iska fiiriyo waxyaalaha oo cabaayo oo maaragtay oo wixii waa inuu ahaadaa wax maaragtay sixirka dilaya iyo maaragtay oo wixii baabi'inaya marka sixiradana way kala yihiin waxaa kalood ogaataa inay sixirada ay kala yihiin mid waxaa jiro oo maaragtay oo jirkaaga la soo oo galaayo oo markan la jadiidinaynin badanaana sixirkaas waa sixir rabtna waxaa la yidhaahdaa waa sixirka oo maaragtay ninka aan xaaskiisa aan u tagi karin xaaskiisa uma tagi karo oo maaragtay wixii si fiican sidii la rabo uma qabanayo mise waxaa lagu samaynaya naagta sixir rabt ayadana ninkeeda uma tagi karo kaas badanaana lama jadiidiyo cilaajkiisna maaragtay waqti dheer ma qaadanayo waxaa dhici karta in sixirka lagu jidiidiyo in lagu jidiidiyaa dhici karto laakiin can tariiq aljin jinniga dhinaciisa in sixirka uu soo qaato oo saaxirka u tago oo sixirka uu soo qaato oo jirka haddana uu ku soo noqdo oo haddana wixii uu soo jidiidiyo waxaa dhici kartaa inuu hurdada kugu sii aad cuntid waxaa dhici kartaa cuntada biyo cad adoo cabaysid biyaha cadka inuu kugu daro adigoo aadan u jeedin marka waxa waaye hadalkan waxaan u sheegaynaa walaalayaal aan rabnaa inaan mar walba aan ku soo celcelino bani aadam qasab ma aha inuu ku sixiro mar walibo bani aadam ma aha inuu ku sixiro mar walibo shaydaanka ayaa ku sixiri kara bani aadam la'aantiis bani aadam uma baahna mararka qaarkooda
marka waxaad arkaysaa qofka qur'aan la saaraya shayddaankiyaa hadlaaya jinnigaa hadlaaya wuxuu iska soo dhigaya qof adiga aad garanaysa codkeeda oo kale qoftaas waxaa ka dhex hadlay eedadeeda alagu leeyahay waxaa ka dhex hadlay adeerkeeda waxaa ka dhex hadlay habareerteeda waxaa la rabaa qoftaani maaragta in qofkaas lagu diro marka adiga naftaada caqliyan ma isweydiisay qof bani aadam ah qof bani aadam kale so ugu dhex hadlaaya soo qof bani aadam aniga jirkayga u dhex galaaya su-aashaas in la isweydiiyo waay walaalayaal wax macquul ma aha inuu qofka kula yimaado uu ku yidhahdo wallahi waxaa iga dhex hadlay adeerkayga adeerkaaga soo jirkaa ku gala waay marka macquul ma tahay mayo waa macquul ma aha marka waxa waaye yani wixii in xoogaa yar maaragtay in maskaxda lagala furaa la rabaa yani waxa waaye shayddaanka agtiisa waxaan ka noqonnay sida ilmo yaryar oo lagu dheedheelayo oo kale qofaa la rabaa qof kale in lagu diro shayddaankaas qofkaasoo iska soo dhigaya qofkii cadaawad loo qaadaya qofkii malala hadlaya salaan lagama qaadaya waa la goonaya wuxuu hallayna male marka waxyaalahaas oo kale in laiska ilaaliyo qof kale kaama dhex hadli karo sixirka anaa u sameeyey la'anna waxay ii tirida maalintaas saas iyo saas way caysay waan ka argudanaya qofkii hadlaya shayddaanka qofkii oo iska dhigaya marka qoftaani marka iyo dadka meesha fadhiyo cuqdo ayay qaadayaan qofkii ayaa waxa loo qaadayaa maaragtay cuqdo oon maskiin ah oo beri aan waxba hadlaynin ayaa markaas maaragtay meel xun maaragtay ay arrinta gaaraysaa marka insha allah waxaad ogaataa in qof bani aadam ah oo kaa dhex hadli karin haddaad aragtidna inuu qof bani aadam kaa dhex hadlay waxaad ogaataa qofkaas in ayaa la rabaa in lagugu diro marka hadalkaas inaad dheg u dhigta ma aha inaad ka cuudubillaysato ayaa la rabaa oo qofka walaalkaaga oo muslimka maaragtay inaad xaqiis aadan ku gudbin insha allah ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa kelimadan gaaban aan soo jeedinay inuu ajri xasanaad naga siiyo ilaahay subxaana wa tacaala dunuubteena hanaga cafiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay miisaan xasanaadkeena hanoo saaro subxaanaka allahu bixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa ant nastakfiruka wanatuubu ilayk wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu